السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا هبين عصب إيو ونس وذكرام عاو حاربا وحير إنان كلا بحيو لaba كلمة أو dadka isku qaldaan aad way isku dhow yihiin macnahooda, so it's very easy inay qofkii oo fahamsaneen cudurada maskaxda inay isku qalado. labada kelmo waxa waaye phobia iyo paranoia. phobia waxa waaye markay qofku dhahdo phobia qaba waa cabsi oo waxay ka cabsanaysaa wax oo mucayan shay mucayan. So masalan qof oo phobia ka qabtaa jirta masalan inay diyaarad korto ama meel dheer like burga camal, sar dheer inay korto, cabsida meelaha oo meel elevated ka ah inay ka cabsato. So phobia qabta waxay qabi kartaa phobia of dogs camal. So qof oo waxaa jirta ay haddii aragto isla markii ama ka cararayso, fight or flight camal waaye. Ama inay waxaa masalan phobia waxaa ka qabi kartaa just spiders, carcarada camal, or baranbarada or whatever something. But most of the time qofka oo phobia-da qabto waxa waaye wax macquul ah badanaa waxaa cause garay sabab mucayan like trauma camal. Qof masalan ay qaniinay aragtay iyadoo yar way ka cabsatay, so sidii darmarkaasito ay ka cabsatay. oo I know markii masalan Soomaaliya dhibaatooyinka ee dhacday badan dad waxaa la maqli jiray, ani hataa anoo yar waxaa maqli jiray oo hebel wuu dhintay meydkiisa meeshaas laga helay isagoo eyga cune, so isla markii waxa waaye qofka cunugii wuxuu isku xiraa eyga dadka inuu cuno, iyo especially qof meyd markuu cuno yani maxaa dhiban waay qof normal moodaha camal waay. So phobia usually wax reasonable waaye, wax qofka waxa waaye trauma camal ama dhibaato ee la kulantay ama wax ay aragtay cause gareeyo. marmar way iska dhacdaa qof oo phobia qabto just because anxiety-geeda badan, so cabsi walwal badan ay iska qabtaa reer walwal waaye, so waxay phobia ka qaaday specific things. taas way dhacdaa, so that's phobia al dhahaa. But most of the time phobia qofka haddii qabto it's rational, macquul waayo wax oo mana aha cabsidaas tan kusoo kacaysa ilaa ay ka aragta masalan ay ama caaro or la dhaho masalan ilaa inaa safartid waaye important waaye diyaaradda inaa kortid, then anxiety-geeda kor ay u kacaysa. like markii paranoia loo dhaho qofka dhahaysa mar dhab haddaa qofa email isoo diro oo dhahaysa paranoia inay qabto. What's paranoia? maxay tahay paranoia horto? Paranoia waxa waaye markii qofka paranoid waaye lagu dhahayo delusion waaye runtii. Delusionna macnaheed waxa waaye qofka markay iska dhaadhiciso wax aan run ahayn. So qofkii waxay iska dhaadhicisa masalan haddaa guriga ka baxo waa dhimana camal, okay? In their head qofkaas maskaxdiisa runay u tahay, run waaye way aaminsan tahay ba haddee baxdo inay dhimanayso, so guriga isku celinaysaa masalan. So waxaas waxaan dhahnaa irrational waaye, yani waxaa macquul ahayn waaye. wax oo qofka delusion marka la dhahay saas waaye. markaa maqshid delusion waxa waaye wax oo justified ma aha, enough reason ma jiro oo qofkaasito ama dadka kale ka dhaadhicinaya inay dhici karto, because guriga dadka bixinaa dhima kartaa, malakal moodka banaanka leh ku taagna guriga kugu soo gali karaa, sartaada kugu imaana. So it's a delusion. waxaa maqlaysaa qof oo hadda yesterday shalay ay ahayd one of my clients waxaan dhahay well islaan weyn waaye, maamo waaye oo I think 60 jir kor way u dhaaftay. So waxaa qabnaa magaaladeena wax oo day program la dhaho. So day program ma tagtid oo qof geysa ma laha. waxaa jira bas oo waayeelada soo qaadan, baskaas ma qaadatid? No, baska accident oo gali karaa. baabuurka naftarkiisa oo lagu soo qaadayo accident oo gali karaa. So cabsi oo ay iska dhaadhicaysa baska hadday korto inay accident galayso ma aada programkii. So therefore gurigay joogaysaa waqtiga badankiisa, waayeel waaye, qof la joogta ma laha, way isla hadlee. And then where she ends up in crisis services meesha aan ka shaqeyso crisis oo ima hayso, so inay dhimatay rabtaa, depressionkeeda batay, blah blah blah, all that stuff waa dhacaysa. So marka waxaa basically rabaa dadka dhaadhicay waxa waaye phobia iyo delusion inay laba kala tahay. qofka oo phobia iyo paranoia inay laba wax kala tahay. Paranoia dadka qabaan most of the time more severe mental illness waaye, maskaxdooda dad jiran waaye, and that's markii oo like
qofka psychosis ay qabto ama schizophrenia iyo you know there's a bigger issues are jiraan markii qofka paranoid ay tahay versus markii qofka phobia ay qabto which is just a basic anxiety waaye is wax la treat garay kara waaye and usually waxaa soo trigger garaya waxaa soo kiciyo specific situation ama specific shay mucayan ay arkeen aan mana soo xasuustaan until oo waxaas oo ku hor imaado so ama spiderki ama eegi ama whatever oo noqon karo ilaa ay waxaas ka arkaan ma kusoo kacayso phobiyadooda ma xasuusanayaan base paranoia qof hadday qabto please paranoia qabaha isku dhihin dadka because in cultureka aan ku noolnahay paranoia qofkii qabto they have serious mental health issues and haddaa qabtid paranoia hubtidba inay paranoia tahay oo delusion waxa ay tahay wax ka dhacsan adiga leh oo there is no like justification or reasonable then you need in a mental health services area that you need medication in that you need counseling in that you have to learn sidii kula noolaan lahayd this paranoia because it is a serious condition and it's not something oo lightly u qaadan karno so أنا هذا كده كوسي ديرين I just want to make sure the difference between phobia and paranoia in it dadka soo gaarta maanta si oo qof kale ee iskugu qaldin ay dhihiin paranoia qaba iyo phobia qabta ama phobia qaba iyo paranoia qabto because completely different things why and their treatments are laba shay oo kala duwan waay waa intaas iyo waa nasbatay kram waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh